إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan u tacsiyeynayaa ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadka ku naf waayay maanta barnaamijii nabadeed ee ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Daynile. inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena waa ku dhaawacantay. waxaan leeyahay inta dhimatay Allah u naxariisto, ehelada iyo qaraabadina samir iyo iimaan Allah ka siiyo. inta ku dhaawacantayna Allah u boogadhayo. dhacdadaasi waxa ay dhacday iyadoo dad Soomaaliyeed oo dareenkooda cabiraya ay ku banaan baxayaan degmada Daynile. banaan baxaas nabadeed oo socda ay ciidanka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh hogaamiyo oo maalmuhu u dhaman yihiin waxay huuyeen rasaas aan loo aaba yeelin. dadka khatarta ku galay meeshaas oo Ilaahay ka badbaadiyay markhaatina ka ahaa waxaa ka mid ah xildhibaan Faaiise Jeyte oo socotay goobtaas dadku ay ku dhibaatoobeen, wiilna uu ku geeriyooday, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. ilaa xalay waxaa ciidan dul yaalay dhammaan madaxda mucaaradka meel walbo ay magaalada ka joogaan. ilaa saaka waxaa la soo kordhinayay ciidanka. qof walbo annaga naga mid ah oo isku dayay inuu albaabka ka baxana waxaa lagu horgooyay ciidan, waxaana la khatar geliyay naftooda. waa ayaan darro waxa dalkan ka socda. waa nasiib darro sida dalkani uu qarowga sii dhacayo. mas-uuliyad darrada iyo khatarta uu dalkani wajahayo waxaa ka mas-uul ah madaxweyne Xasan Sheekh. annagu waxaan u taagannahay nabad, xasilooni, deganaansho, ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda. in dad Soomaaliyeed oo banaan baxaya oo cabiraya dareenkooda oo aanay xataa madaxda mucaaradka ah la socon xabad lagu furo waxay tilmaamaysaa dhaqanka dawladda. mar kale ayaan waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waa inay dib isu abaabulaan, soo jeestaan, iskana difaacaan gumaadka ay dawladdani ku hayso.